wadooyinka magaalada Muqdisho waxaad ku arkaysaa tirada xad dhaafka ah ee mootooyinka saddex lugooleeda ah oo ay dadweynaha sidaadka u isticmaalaan kuwaas oo ay wadayaal ka yihiin dhalinyaro shaqo abuur looga dhigay. in ka badan 5,000 oo mooto bajaaj ayaa u diiwaan gashnaa General Cali Xirsi Barre taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka hal sano ka hor intii aan xilka laga qaadin, laakiin hadda oo dib loogu magacaabay xilkaasi waxa uu rumaysan yahay in tirada ay intaasi ka sii badan tahay. xilligii aniga aan joogay 5,000 ay mareys, laakiin maanta aniga ma cadeyn karo hal sano iyo 2 bilood ayaan ka sii maqanahay shaqadan. sidaas ayaan hadda tirada saxda ah oo bajaajka magaalada jira aanan u hayn. tirada kugu dambeysay waa 5,000. 5,000 ay waata ma qabil ayaa markii shaqada ka maqnay bil hal sano iyo 2 bilood ayaan ka maqnaa. dhalinta wadayaasha ka ah mooto bajaajka badankooda ma lahan xirfad darawalnimo, taasna waxay sababtay in shirarka ugu badan ee ka dhaca wadooyinka caasimadda ay ku lug leeyihiin mooto bajaajka. sababta jirta waxay tahay dadkii oo dhan markino alyoomkii raadsan nin wadida yaqaan labadaba waa wada wadataa. magaalada Muqdisho waa magaalo weyn, dadkeedana waa ku fara badan yahay. nin hadda loo soo dhiibo hadda shil la gala arkay, nin hadda loo soo dhiibo ilaahay markino micay wixii iska wata arkay bilaa leysi la'aan, nin leysi ka wato markino shaqadina haddana aanan heli karin oo arkay. runtii hadii aan kaaga waram aniga hadda midaan aan wado midaan leeyahay maahan qofkan kaliya aan wada lacag $8 laga qaadaa maalintii bardhay. wallahi darawalnimada horena waxa ugu baxsanaayo hadda bajaaj ugu horeyn gaadiid badan hadda waa xoogaa wax soo kacay steerso waa soo qabtay. baabuur caadi ah wadi jirtay. baabuur caadi ah soo wadi jirtay. mooto waa ka duwan tahay sama. mooto waa ka duwan tahay laakiin mooto waxaan wadi jiray awal Facebook. Facebook tan waa isku mid. mootooyinka Facebookda waa taqaan si fiican u taqaan online iyo mootada tan waxba isma dhaamaan. sababtoo ah Facebookdu inta marshay ay qaadatay si qaabkay u qaadatay tanna wadada sharci ayaa loo maraa qaab loo maro shuruuc leedahay taas laftigeeda waxba kama taqaan Soomaa. wallahi dabcan hadii aan kaaga sheekay taasna waxa waaye sababtoo ah adduunyadu waa in dheer garad Soomaalidu ee dadku bilaadin wuxuu kaliya in dheer garad ee nin wax bartay waxaan ku jirnaa qolooyinka in dheer garadka ah oo hadee Ilaahay kuma darnaaday wacyiga iyo waayaha jirana baray. dadweynaha isticmaala mootooyinkaasi waxay qabaan walwal xilli walba oo ay raacayaan mooto bajaajka. horta hore marka ugu horeyso waa dadka nidaamku ma socdaan oo dawladdiina wax loo baahnaa inay nidaamiso oo imtixaanaadka qaado si ay u wadaan. ayagana khayr mas'uulnimo badan aan ku arkaa waxaan inay bir tahay oo mas'uul ay yihiin oo dadka saaran inay mas'uul ka yihiin maba oga. marka waxa arkaysaa ayagoo isku xiraayo meel ayna mari kareen inay isku dayaan inay maraan, haddana jidadkii wadankii oo iska jajaban ayaa waxa arkaysaa in si khayr caadi ah inay u wadaan. marka dhibaatooyin badan accident badan oo ka dhacayna waan arkay. marka waa kaasa. marka adigu shakhsiyan marka raacdo maxaa dareertaa cabsi ma dareertaa? cabsi aad iyo aad u weyn waan dareemaa. waxaan isla goormay kula gadoomi doontaa goormay shil gali doontaa haddii la hadashidna waxay ku arkaan ma aragtay adigiiba ma aragtay ina ma aragtay nin duqo ma aragtay nolosha jecleena tahay. taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka General Cali Xirsi Barre ayaan weydiiyay sida ay u hubiyaan xirfadaha wadayaasha mootooyinka iyo mas'uuliyadoodaba ka hor inta aysan siinin waraaqaha sharciga ee darawalnimo. waa sharci degsan oo 1962 kiilo deji. ninkan waa inuu 66 caafimaad qaba, maskaxiyana caafimaad qaba, indhihiisina fiyoyin, gacnihiisina fiyoyin, lugihiisina fiyoyin, maskaxiyana caafimaad qaba. markaas waxa ku xigay inuu tababar soo maray. ninkaas oo tababar qaatay oo gaadiidkan si loo wada bartay. waa tahay tababarka idinka soo ma hubisaan mise idinkaasiyo waxaa jira dugsi ka furan wasaaradda gaadiidka hoostaga oo u furan in laga qaato leysimo oo imtixaan lagu qaado oo shahaadada lagu bixiyo wadida gaadiidka iyo mootooyinka. qoladaas ayaa u soo ogolaata, leysigan ayaa u ogolaada. annaga gacan siin baan u nahay. hadhow qofku markuu inta shil galo dhibaato timaadana waxaan xaq ugu leenahay inaan leysinkiisa iyo buuggiisa ogaano. hadda sidaan ka warqabno shirarka ka dhaca magaalada Muqdisho wadooyinkeeda waxaa ugu badan bajaajka ama iyaga shilka ha galaan ama ha lagu galo. maxay tahay sababta? muddooyin haddeer
waxbaa isku noqday xataa xadka lagu soconayo waddada tabeelaha baabuurka 30 bajaajka 20 ninkan wuxuu raadinayaa caasigii ayay bedeleen nimankani asagoo dheereeyo ku dhaafaya qafka gacantu taagay barta hore ka istaaga inuu qafkaas qaado rabaa waxa imaan kara iyo dhibaatada uu ku dhex jiraba ma uusan dareemin waaka marka idinka ma diiwaan gelisay keeba badan baabuurta kale BL-ka ama caadiga ah iyo ku bajaaj xilliga aniga aan shaqeynay bajaajka ayaa badnaa shilalka inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo ay sababeen kororka iyo xirfadleyda mooto bajaajka iyo darawaladooda ayaan haddana dhanka kale waxaana dafiri karin sida ay u dabooleen baahida gaadiida ay qabeen dadweynaha gaar ahaan ardayda iyo shaqaalaha maalin walba ku kala shaqooyinkooda iyo goobaha waxbarashada kuwaasoo sidoo kalena ay ka rawaxiyaan waxaana sidoo kale ay dadweynuhu ku qabaan mooto bajaajka isticmaalkeeda qiimo jaban oo ay ku kireystaan